Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka maanta qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah kulanka Arsenal iyo kooxda Chelsea, Liverpool iyo kooxda Tottenham, maadaama maanta la ciyaari doono kulamo aad u xiiso badan oo ka tirsan tartanka horyaalka English Premier League. fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhesiina share garay barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Arsenal ayaa kulan adag oo horyaalka English Premier League waxay marti u yihiin Chelsea, waxayna wiilasha Mikel Arteta ay haminayaan in ay maamulka horyaalka Premier League ay kusoo laabtaan oo haatan ay Manchester City hal dhibic ku hogaaminayso kadib guushii xalay ay ka gaareen kooxda Fulham. Xogta kulanka, Arsenal ayaa u tartamaysa in ay badiso 3 kulan oo isku xiga oo horyaalka English Premier League oo ay marti u tahay Chelsea markii ugu horeysay tan ilaa 1997. Gunners ayaa badisay 3 ka mid ah 4 kulan ee ugu dambeeyay Premier League ay wajahday Blues, taasi kor waxay gaareen kaliya 2 guul kadib 17 kulan, 6 barbardhac, 9 guul ayay gaareen. Chelsea lagama badin 12 kulan ee ay gurigeeda ku ciyaartay tartamadoo dhan tan ilaa guuldaradii 4-2 oo ay kala kulmeen Gunners 20 bishii Abriil. 7 guul iyo 5 barbardhac ayay wataan. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa noqon doona ciyaaryaankii labaad kadib Cesc Fabregas oo u dheela Arsenal iyo Chelsea kulamada Premier League u dhexeeya kooxahaasi. Raheem Sterling ayaa 8 gool oo Premier League ka dhaliyay Arsenal. Kooxaha kaliya ee rikoorka fiican ka haysta waa Bournemouth iyo Watford oo min 9 gool uu ka dhaliyay. Dhanka kale, kulanka aadka u xiiso badan ee la ciyaari doono horyaalka English Premier League waxa uu dhexeeya kooxaha Tottenham iyo kooxda Liverpool. Kooxda Liverpool ayaa marti u noqon doonta kooxda Tottenham kulan ka tirsan horyaalka Premier League kana dhici doona garoonka Tottenham Hotspur Stadium. Liverpool ayaa kulanka soo galaysa iyagoo doonaya in ay ka fogaadaan guuldaradii saddexaad oo xiriira Premier League. Dhanka kale, kooxda Tottenham ayaa doonaysa in ay sii wadato rikoorka guulaha xiriirka kadib markii ay badisay kulankii hore ee horyaalka English Premier League. Kulanka Tottenham iyo Liverpool tartanka Premier League waqtiga waa 1 saac iyo bar habeenimo. Garoonka waa garoonka Tottenham Hotspur Stadium. Xaqiiqooyinka kulanka laga diiwaangeliyay, Tottenham ayaa guulaha ka gaarin Liverpool 9 kulan ee ugu dambeeyay Premier League tan ilaa markii ay 4-1 ay kaga badiyeen kulan dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii 2017. Liverpool ayaa ku fashilantay kaliya 1 kulan 20 kulan ee ugu dambeeyay Premier League ay la ciyaartay Tottenham, kaasi oo ah kulan dhacay bishii Oktoobar ee 2015. Kulankan ayaa ah markii ugu horeysay ee Tottenham ay ka horeyso Liverpool iyaga oo ka sareeya Reds Premier League tan ilaa December 2020 iyaga oo Reds markaasi ay ku badisay 2-1. Kooxda Tottenham ayaa dhibcaha ugu badan ka heshay Premier League marka gool looga hormaro xilli ciyaareedkan iyaga oo helay 10 dhibcood marka goolka koowaad ee ciyaarta looga hormaro. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhesiina share garay si barnaamijkan asxaab badan u gaaro. Mahadsanidina.